بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan soo bilhaynaa wacyigelin ku saabsan sidii la iskaga wacyigeliyo cudurka coronavirus haddaan nahay hay'adda Tushirikani Development Organization maanta oo Arbaca ah taariikh 31 waxaan go'aansanay inaan wacyigelino magaalada Dadaab iyo nawaaxigeeda oo dhan annagoo ka duulayno in aan nahay hay'ad deegaan ah oo u xil saaran arrimaha bulshada Dadaab sidaa darteed waxaan rabnaa cudurkan maanta weefka saddexaad ee dilaaga ah meel walba qabsaday inaan ka wacyigelino bulshada Dadaab ee deegaankayna tuulo walba iyo village walba iyo buulo walba waxaan rabnaa inaan gaarno oon ku wacyigelino masaajidaha meelaha la isku imaado madrasooyinka dugsiga qabuuraha markii la isku imaanayo dhammaantood waxaan rabaa inaan ka wacyigelino in la qaato mask sanka afka la xirto gacmaha la dhaqdo in la yar kala fogaado oonan dadka ayna kala qaadin cudurka khaasatan waxaan u dan leenahay inaanan la galaafanin dad ku bilaabaya waxaan samaynayaa waxa la sanitizers waan gacmaha ugu shibi gacmaha rabaa inaan u dhaqo bas si aad qayb hay'adda la Tushirikani marka Tushirikani waxaan ii sheegayaa cudurka corona cudur jiro waaye waa cudur dadku u dhamaanayo meel walba waxaan codsanaynaa dawladaha nin walba meeluu joogo inuu sanka xirto la kala fogaado gacmaha la dhaqdo meelaha maaragtay xaafadaha iyo waxa guryaha isku imaanaya inaad kala fogaatiin baa loo baahan yahay in isku imaan marka dhista sameeya waxaan ku bilaabay hay'adda Tushirikani waxaan noo soo daadiyeynaa hay'adda Tushirikani Dadaab waa hay'ad local NGO ah qaar Allah siiyo hay'adda dhalinyaro jiraan dibadaha oo kamid yahay Maxamed Kahin Absalaan Ayaan Cabdow kuraydaas ayaan faangareynayaan qaar Allah siiyo ayaguna waxaan u sheegayaa inay wadada iska kacaan inta wixii Dadaab iyo meelahan aagan aniga waan dadaalayna ayaguna ay xagga ka soo dadaalaan insha Allah ta'ala wax naga halaabayana malaha waan soo hasho u bilawnay waana la socon marka ogeysiis dhammaan dadweynaha waxaan ogeysinayaa kale waxaan ogeysinayaa hadda weli magaalada maana gelin public health ayaa waxay ka gacmaha public health ayaa hadda ku wareejinaya microphone-ka marka aniga hadda maadaama chiefkaan wixii kale public health u dhiga asiga wixii kale oo sheegay insha Allah ta'ala marka nashukuru mtanda kwanza kukaribisha public health officer wetu wa Dadaab Mr. Dennis ambaye atatueleza zaidi kuhusu hii ugonjwa wa coronavirus ambapo huu ugonjwa ni ugonjwa ambaye yuko na watu wengi walikufa na bado kuna wengine wako hospitali na mabunge wengi wamekufa shule hii ugonjwa na wazee na vijana so tutafanya juu na chini vile tungehadharisha ama vile tungefanyia watu wetu wa Dadaab wajue umuhimu na ubaya wa hii ugonjwa na hii ugonjwa ni ugonjwa ambaye haina matibabu inaweza uwa wewe anytime so bila hiyo lakini kwa upande wetu kama sisi viongozi ama serikali tutajaribu ile tunaweza ya kuwa na tutaeleza wananchi ya kwamba kila mmoja akae mbali na mwenzake afunge mask na vile na aoshe mikono vile inatakana. So kwa haya machache ningesema asanteni sana. Sasa nitakuwa nikipea microphone bana public health officer Mr. Dennis who is also with us now. Ningependa I will also talk in English and I'm very thankful our organization by the name Tushirikani. This is one of the local NGOs which has been established in the year 2005. In the year 2005, and with a very good strength of both men and women. I'm very appreciative for that. Today I'm here in front of the office. And to put them in gathering now. From here we are going now to the area to the where the community are based and informing that this disease is a dangerous disease and it can kill. So we are advising the communities to be careful and make use of masks, hands washing, and also social distance where there's a lot of gatherings.
For now, I have not much to say. I wanted to welcome the public health doctor, Mr. Dennis. Welcome, Mr. Dennis. Thank you and so much. Thank you so much, Bwana Chief. My name is Dennis Onsongo. I'm the public health officer for Dadaab. So it is actually a very noble idea with this local NGO called Tushirikiane. It is a very good idea that they come up with to try and sensitize the community about this COVID disease. Coronavirus is with us, and it is real actually, because even in Dadaab we are having cases. We are also having deaths, so we have to take great care of ourselves and ensure that we wash our hands with water and soap regularly, use our sanitizer, ensure we maintain social distance, let's avoid crowded places, and ensure always when you get out of your house to move outside, just ensure you have your mask on so that you can protect the other person also. And also for those of us who are accessing the facilities, that is the public facilities like the hospitals and the police camps and such like facilities, and also including schools, ensure you have your masks on so that you can protect the others and also you can be protected. So I'm taking this opportunity also to thank the Tushirikiane local NGO. You are really doing a wonderful job, and it is a timely initiative to ensure that our community is well protected and well informed about this COVID disease. And also, as many of us have heard, we have COVID-19 vaccine, which was recently rolled out, and very soon it is going to come here to the Dadaab, targeting health workers, those people who are aged between 58 years and above. We have also the police officers, the teachers, and also those community members who may be willing to get the vaccine. The vaccine is very safe and it will protect all of us from the severity of this coronavirus. So thank you very much, and we appreciate your initiative. We thank you very much. Asanteni sana. Nashukuru. تعال واكن شوف قاضي أمرك
gacanta dhaqo ini ku dhufta ku hay eh hey bang عبد الرحمن فيديو ما كده هذا On that 1st March 2021, Tushirikana Development Organization was conducting awareness campaign on deadly coronavirus. We're delighted because today the community was well educated about the mode of transmission and preventive measures. We also distributed masks, sanitizers, stickers demonstrating social distancing, hand washing. We honor all the dignitaries arrived for the event. Thank you all.